marka wuxuu dhahay biil baa ku qoray adigu biil buu qoray u soo dhaqaalin jiray after 2 months waa waayay xiriirkiisa waxay ugu dambeysay bishii 8 Agosto sanadkan 2024 markii ugu dambeysay wuxuu ugu yiri ciyaalka dalxiis ku xaynaya iskuulaadka waa loo xiray markaas warkiisa ugu dambeysay ilaa hadda dib dambe ma ilaa hadda dib dambe ma u aran taleefankiisana xataa ma shaqeynayo maxaa isleedahay ku dhacay markaa walaa inuu xanuunsaday in taleefankii laga qaaday ma garan karo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتين ملكستي أدونك أتكجوكتان هالك أنا قدامنا السلام برتنا في فيسبوك أو في يوتيوب كقدر شريف فضلنا ضيت أمركو ورسع وعنا سبسكرايب نوصل عاديات بقى ما حسنتين مركلة يا مقال كله يا برنامج كينا قصوين كي جعلك برنامج كينا قلبته وحامرتين وواه ولا شيء مع عبدي أورنهانتي برنامج هذا نوع أنا وكلا في دور واه waan uga mahadcelinaynaa barnaamijka ka soo qayb gashay inta aanan marka hore barnaamijka balgudaha u galin sheema idinka kala dhaxbaxo soo dhaw walaashay waa mahadsantahay khadar shariifo dhamaan waa salaam iyo asxaabtaada meel kasta adduunka ay ka joogaan waana ku dhahay barnaamijka waana ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo asxaabta halkan wareysiga loo yaqaan aad iyo aad baa mahadsan tahay kursigan waxaa soo fadhiisata akhyaar fara badan waxaan weydiinaa su'aalo wacyiga maanta jiro sheema su'aalaheena haddii aan gudaha u galno marna inaan barnaamijka sii dheereeno marka ugu horeyso qofka xaggan soo fariistay waxaan weydiinaa waxa uu ka aaminsan yahay jacaylka waa mahadsan tahay ana waxaan ka aaminsanahay jacaylka inuu yahay wax jira laakiin waayada dambe uu aad u dhibatay waayada dambe uu aad u dhibatay macnaha marka maxaa way xumeeyay isleedahay jacaylka wallaahi jacaylka waxyaabo badan baa xumeeya marka ugu horeysa dadka inta badan daacad kama ahan dad waxaa jira dhinaca interestigooda eega ama waxyaabo khaas ay danayaan marka laakiinse markii ragga iyo dumarka loo eego jacaylka gabdhaha daacad u ah aad iyo aad okay waa mahadsantahay intaana ka bixin rag daacad ana way jiraan laakiin waxaan dhihi karaa 95% dumarka dareenkooda ma qarin karaan gabadha haddii ku jeceshahay waa fahmaysaa mar walba laakiin waxa laga yaabaa ninka asoo gabadha jeclayn inuu qabi karo inuu ilmo ka dhali karo inuu sanado badan la socon karo sawirka si lagu fahmo way adagtaa wow waa sir kale cusub waa mahadsantahay waxaa jiro badanaa in lagu eedeeyo qofka bini'aadanka markii uu dhaqaalaha yeesho inuu isbedelo adoo ahaan maxaa isleedahay qofka bini'aadanka markuu dhaqaalaha yeesho inuu isbedelo maxaad fikir oo ka qabtaa wallaahi qofka markuu dhaqaalaha yeesho inuu isbedelo waxaa keenta waxyaabo badan ka horta lifestyle-kiisu isbedelaya markaas wuxuu raadada yacni la leefala inuu la socdo la jaan qaado oo meeshuu ka yimid ku noqon dadka qaarna ma bedesho nolosha oo waxyaabihii adkay nolosha adkay soo mareen asxaabtooda iyo jacayladooda ugama tagaan marka intaan ka bixin yacni ragga iyo dumarka haddii la dhogay lacagtu bedeshaa dumarkay bedeshaa maxaad ku tiri in dumarkay lacagta bedesho salahan gabadha ayadoo xiriir leh waxa laga yaabaa ama wax jecel oo kale haddii mid lacag wata u yimaado in ka raacdo laakiin soo ku kala duwan yihiin gabadha guurka soo maray gabadha aan guurka soo marin arinkaas badanaa hablaha guurka soo marin waxay raacaan lacagta maya gabdhaha guurka aan soo marin marka safiinkooda ay danayaan dareenkooda jacayl laakiin gabadha marka guur soo mardo badanaa waxay fokus karaysaa waxyaabaha ay danta u ah waxa danteedu ah هذه إنك سقار بدن أو يعني لو ذكرنا أي تيران أو الجفاء إذا استطرفوا هذا إيوه سدين قف كان هذه والعكت الراعو سيدون نقول فرحة لو قلنا لعنك هذه يسندرين قدو سندبك هين أو أدلع كرال والله خضروا ما دام ما أنت تعالك وسكحهم هذا يعني الشيء آمنات اللي آمنة شخصيات كل تعلي أم حرة لعقته أيضا فرحة السميث لعقته أيضا فرحة أنت أوكي كبدو واحد تعلين دلالك قروح ذا يعني قروح بدن أغل قروح بدن وح قروح بدن إنك أكسي تعلين قروح بدن لكن قروح بدن هدي ويان لعقتها سي مركزته أي قروح يعني يفرح ذيك الرادية أوكي ما أنت عادك شخصيا نين كجعل يعني لعك هيستو أديك على نوشه يعني نين كجعل
inaad la noolaato iyo nin lacag aad kula joogto inaad la noolaato kee baad rabi lahayd inaad ku noolaato wallaahi reality marka laga hadlo jacaylka ani hore u aaminsanaan jiray laakiin hadda ma aaminsana wayna sababta aaminaada yaraatay marar badan baa kusoo fashilmay ma garata marka dabcan aniga waxaa la noolaan lahaa qofka yacni ii sheeg nolosheeda ku filan dabcan waxaan hadduuse xataa jeclen anaa ka keensanaya oo jacayl ku abuuranaya laakiin waa inuu lacag haystaa leedahay waa inuu dhaqaale ku filan u haystaa oo nolosheeda maareyn karo okay laakiin su-aasha exactly ma pointing ma ka jawaabin waxaan ku yidhi qof maanta lacag haysto inaad lacagtiisa kula noolaato iyo qof ku jecel inaad jacaylkiisa kula noolaato kee baad rabi lahayd labadaas nololood inaad ku noolaato anigu waxaan rabi lahaa qofka yacni dhaqaalaha igula nool sababta dhaqaalahaas hadduu dhammaado ama ha iga tahay ma ila joogo kan xataa jecel birka maalin yacni inuu ila joogayo weligiis wax ii cad maahan asba iga tegi karaa sooma marka labada qof haddii iga tegayaan ka lacagta laha iga tago sabab xilli aan wax ka qabsaday oo nolosheeda dhistay u tegaya okay ninkan lacagta leh markuu kaa tegayo ilaan deked aad ka shaqaynaysa ma aha waa qof kula noolaa marka ugu badan gabadha qofka la noolyahay si kastuu dhaqaalo u haysto muxuu siiyaa waa biilkeeda iyo in yaroo lagu daray wax kale oo gaar ah ninka macnaha hadduu dhaqaalo haysto waxa shuruudu anigu inuu yahay nin gacan furan aanu nin bakhayl ma raaceen oo gacan adag okay gabadha xaaska markay gurigeeda ku nooshahay yani maxaa waajib ah yani maxaa kalifayo in dhaqaale iyada ka badan oo dad raacinaya in la siiyo maxaa sababi kara taas waa macruuf yani loo sameynayo gabadha xuquuqda ku leedahay markii laga soo gudbo in ninku dhaqaale dheeraad u sii extra waajib asaga kuma aha laakiin wuu u sameyn karaa waa caadi asaga xoolihiisa la soo waa saxan tahay laakiin inaan u sameeyo waxaa la yidhi qofka haweenka ah markii ay agtaada joogto adigaa soo yani adaa xabad ku soo garaacday yani adaa soo damaanad qaaday markii laga tago waalidkeeda maanta anaa yiri anaa ku filan adaa yiri okay markii mas'uuliyaddeeda aan qaadayna wax kastoo israaf ahna waa inaan ilaalin karo sax macnaheedu maaha gabadhan haddii mas'uuliyaddeeda aan qaadayo wax maankeeda bedeli israafina dhexgelsan wax maankeeda bedeli kara iyo dhaqaale iyada ka badan inaan dhexda baalsiiyo yani balankii aan soo qaaday sidaa ma ahayn marka sidee suuragal ku tahay in gabar xaqeedana aan soo qaado haddana aniga si israaf aan u nooleysiiyo sidee idinka suuragal idinla noqotay yani adoo israaf aan gelin waxaad samayn ka dhaha macnaha dhaqaale ku filan baa siin ka dhaha for example oo kale guri baa u dhisi ka dhaha gaari baa u gadi ka dhaha dahab baa u gadi ka dhaha yani nolol yar oo qurux badan jawi macaan baa u abuuraysaa okay haddii nolol midda adiga ay kula joogto ka bedelan yani ani markaan rag ahay xaaskayga waa in nolosheeda ay ku faraxsan tahay laakiin nolol kale oo iga baxsan oo dhaqaale ah oo ay ku faraxsan tahay haddaan u abuuro aniga jacaylkayga mustaqbalkayga maxaa xal u ah كل ما مر بقالة أما نول فرحة الأجرس إذن وقت على هنسا okay waxa ay iga sii jeceshahay oo mar walba dalbanayso maxaa waay hadii aniga ay jeceshahay ma aniga iyo nolosheeda iyo awlaadeeda iyo ma igu ekaato ay ku faraxsanaato طبعا أنت سوي كم فيلنا ما واحد دافع المرة بون فيري يعني أديك أود هذا كحرنتا واحد أديك أذن أودن عندنا كقادمس تاك حسابت waa mahadsantahay waa wax wanaagsan waxaa jiro hablaha sanadkan in raggu ay ku eedeeyaan badanaa in xiriirka xaggooda ka burburo ragguna ay ku soo celiyaan hablaha in xiriirka xaggooda ka burburo aduu fikir caynkee baad ka qabtaa in xiriirka xaggiisa ka burburo ragga iyo dumarka wallaahi horta inuu xiriirku uu burburo labada dhinac way ka imaan karaa laakiin majority ragga oo badan waayo desaan kuu sheegay gabadhu inay ku jeceshahay waa dareemi karaa laakiin ninka inuu ku jecel yahay hal arrin baa lagu ogaan karaa inkastoo ay adag tahay dumarka dhan aysa fahmin khadarow gabadhu si fudud bay wax u jeclaataa qofkay jeclaatana si fudud kuma iloobi karno laakiin waa adag tahay ninkasu wax ku jeclaado hadduu xataa jeclaadana isagoo fursad wuxuu haystaa maanta gabar kastoo u jeclaado inuu guursado laakiin gabadhu ma awoodin ninkay jeclaatay inay guursato waayo guurkii iyo furninkii iyo labaduba ninkay ku xiran yihiin sidaasay gabadha nolosha ugu adag tahay yani dhinaca guurka iyo xiriirada marka la dhaho marka qof noocaas dee yani booseeshkay joogto ma wax ma burburin karno waxa ku badanaya ragga sababta ninka go-aanka sagaale inuu gabadha ka tago inuu guursado inuu furo okay hal su-aalaan ku weydiinayaa maanta ma jirtaa
gabar hebel ama gabar hebel ama gabar hebel oo taariikhda xustay ba ama jacayl u waalatay ama yani taariikh lagu qoray ma jirtaa wallaahi gabdho badan oo jacayl u waashay kuwa isgubay yacni inkastoo anaga bulsho wax qodho badan aan ahayn haddana way jiraan waa maqli jireen laakiin si yacni toos looma diiwaan gelin maxaa sababay in rag la diiwaan geliyo laakiin aan hablaha la diiwaan gelin taa xaqiiqi aan loo rag dareenkooda yacni markuu wax jeclaado badanaa ma qariyo laakiin se dumarku way qarsan siba dumarkii hore aad bay u qarsan jireen dareenkooda why not u leedahay marka hablaha jacaylka daacadu ah haday rag u waalanayaan macnaha gabadhu markay u waalanayso jacaylka waa marka laga tago ama ninku xumeeyo hadar hadda waxaa aragtaa gabdho badan oo baraha bulshada ka qaylay markii la furo ama yacni jacaylka lagu xumeeyo yacni depression qaado kuwa waxay dhahayaan waa isdilanaa kuwa waxay leeyihiin sheeg daqaas ka tuurnaa yacni kuwa waxa laga yaabaa ninka ay kala tageen inay soo caayaan qaarkood inta badan ninkay jecel yihiin laakiin waxa ku adag awoodda ay dhihi lahaayeen hebel waa jecelnahay hana loo soo celiyo ama asaga yacni ku soo saban la waxooga isla weyne waa ku jirnay kibir okay kulay ilaahay markuu la biidhadiga abuurayay waxaa jirta sabab uu ugu talagalay inay u noolaadaan qof kaste xeyndaabkii ilaahay ugu talagalay ka baxana wuu buux dhaafaa like wax kastoo gudaafadaha soo hoos gasho laqaaya bakeeriga markaad biyaha ku shubeysid wuxuu leeyahay limit meesha uu bakeeriga afkiisa ku egyahay haddaad biyaha ku joojin weydo ood ku sii shubto way daadanayaan okay haddana waxaa leeyahay ilaahay ibni aadanka marxalad kasta uu ku nool yahay uu ku nooleysiyay ama uu ilaahay faray waxa ugu jirto maslaxada bini aadanka ku jirto okay anoo arkay in ilaahay wadadu ay ugu talagalay maslaxada haynan ku noolaado hadii nolol kale ama disease ama nolol kale meel kale ka arkay ama nolol kale diinta islaamka aan shaqo ku lahayn hadii aan dabar raaco waxa baabaysatay saxda ahay mustaqbalka okay ma laga yaabaa hablaha intooda badan inay ragga ku kalifaan waxyaabo aanan yani ninka ragga ah uunan qaadan karin sida habeenkiisoo kale inuu celiyo hadii dhacdo inuu celiyo ama inay habeen baxdo hadii uu celiyana mustaqbalkiisa uu ku baabaayo yani boqolkiiba 90 maanta waxa jiro hablaha inay guurka uga tagaan ama ay ku boodaan ragga hadii uu dhaho ka joog aroos ama ha aadin meel ha u bixin haduu dhaho marka maxaa sababay inay isku xiran tahay nolol aanan sax ahayn of course gabadhina baxdo wax diinta ay cadeysay ma jirto inay midnight intay labisato barfuun marsato iyadoo xaas ah tiraahdo meel baan u socdaa haduu i celiyo ninkaygina waan ka tagayaa oo yani guurkaas uma baahnay miyay ku saxantahay mise way qaldantahay waa khalad yani sharciyan iyo gabadha ninkeeda waxa la rabaa inay ka tala qaadato ka amar qaadato hatta markay baxad soo kale inay ka amar qaadato meesha aad u sheegto marka guruna de kala dambeyn haduu salahayn uu burburayaan marka taas waa mid kamid ah riisanad u burburo guriyo u burburaan alxamdulillah kulay horta hablaha isku mid ma aha dad waxa jira wanaagsan oo yani hablo og waxa ay u abuuran yihiin iyo adoonimadoodaba og dad aha jiro waana u mahad celinaya hablaha si gaar ah waliba ugu mahad celinaya waxa leeyahay waxa way Allah idin xifdiyo raggu hal mid bay eed ku leeyihiin laftirkooda gabadhan markay xiriir la sameeyaan ama rabaan inay mustaqbal la wadaagaan waxa loo baahan yahay inay gabadhu u ekaato qofkii mustaqbal la sameyn lahaa ama qofkii ilaahay ka cabso yeeli lahayd gabadha hadaysan rabbi ka cabsan yeelaynin hadalkaagana qaadanaynin way adag tahay inaad saxdo hadii aan dareenkayga iyo way qurux badan tahay intaan ku yeelo mustaqbalka markay awlaad dhashana awlaadeeda aysan ilaalin karin iyadoo aysan ilaalin karin dad wada baylaha ah ee guriga ku joogaan waxa kugu adkaanaysa inaad shaqo raadiso ama shaqo tagto okay nimanka waxaan ku eedeynayaa on leeyahay boqolkiiba boqol waa ku eedeysantiin marka hore mustaqbalka sameysanaysaan qofka mustaqbalkaaga si gudo weyn u fiiri yani si hoose u fiiri qofkan haduu isbedelay ilaa intuu isbedelay doona dabeecadiisa diintiisa iyo mustaqbalkiisa inta ma ku ciyaari doona hadii mayo ku soo baxdo ilaahay la kaasho midaas waa midii ku ficnaa mustaqbalka laakiin qof adigu xiriir kala dhaxeeyo xilligaas waliba aad og tahay inaad iyada kaliya shukaansato iyaduna ay og tahay inay adig kaliya kula sheekaysato haddana aadan celin karin xilliga ama aadan maamuli karin oo ay tiraahdo ani isku mid baan oo ani yani sharciyad waa u simanahay tiraahdo
sidee lagu hagi doonaa ilan meeshan dowlad baa ka dhalan doonta weliba caruur baa iman doontee sidee dowladda lagu hagi doonaa haddii madaxdeeda ay isku haysato kuraasta wallaahi isheeg way adag tahay noloshaas horta marka ugu horeysa ragga waxaa yacni faran u diri lahaa inay guursadaan gabdho wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh gabdhahana sidoo kale inay wiilal wanaagsan akhlaaq leh oo diin leh guursadaan waana mid ka mid ah shuruudaha dadka lagu guursado qofka hadduu akhlaaq iyo diin lahayn dee oo si ilaahay abuurtay ku xirnayn adigoo waxba ka yacni tala kaa qaadan mayo saa yacni nolosha arta kama helasin marka inta badanna dee gabdhaha hadday dayacaan waajibaadka diiniga ama ishaga ay asturka ka tagaan oo kale ama ninka ragooda iska amar qaadan ay ka tala qaadan wixii wanaagsan oo positive mustaqbal ma si dhisnaanayo kullama mar walba oo khilaafkanu sii bato ninkoo banaanka la jooga markii reer la noqdaan khilaafku sii badanaya reerna ma dhaqmayo meesha ilmaa imaanaya aabuhu waa madaxweynaha u sarreeya guriga hooyadina waa ra-iisul wasaare hooyada waxaa la rabaa guriga iyo ilmihii reerkii oo dhan bay kala maamulaysaa iyo martidii wixii imaanayay marka haddii hooyada iska tahay qof iska wareegay ama iska yacni nolol khiyaaliya ku nool reerkaa ma sii maamuli karno okay waxaa la dhahaa raggu inta badan hablaha wuu furaa yani eedaas wayna daba socotaa weliba si zaa'id ah rag haddaan nahay anaa ka jawaabaya midaas gabadhii aanan u diyaarsanayn in la qabo ama gabadhii aanan u diyaarsanayn sidii ilaahay ugu talagalay inay u noolaato lama hayn karo of course فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف بدل كل جديد لها أو لسدباتين لها أو يعني لا أفلقادين لها لا يوارد وحافي عن سي معروفة وناكسين كبدا نهدوني كهين وايو يعني أما سيدي لو قلت لك إنه لا ويد إنه يريد ولا لا يوافصحنته هدو قبداس فصحنا وحلو أركا خلط أو يعني ويريد ولا لا يعني كما دقيقة of course sidee saaxiibeyni ma gabar la bisanayso barfuum marsanayso marwa oo la aroos baan u socdaa aniga ama asxaabteedan raacaya way ninka qabay qofkee way ma jiro adag tahay okay maxay tahay eed ugu badan maanta marka rag loogu soo jeediyaa waa islaan sidii ninka inay rabto u noolaato yani islaan xilligay rabto intay soo degto baawur istaarato magaalada gasho ama inay kula digaasho ninkeeda kafee magaalada u doonanaya qadar gabadha hadii la qabo yani dee xorriyadda hore ma haysanayso waay iyagoo xorriyadda ay u raadiyaan marka haddii waayaan ay u dhahaan nolol ma soconayso gabdho dhahayo haddii sidaa anaga rabno yani sidaa anaga jecelnahay hadduusan samaynaynin nin nooma noqonayo idinku maxaa jeceshiin dumarkana xorriyadda ka qaadaan xorriyad ka qaad maaha waxaa ka badbadisa wixii macnaha yani sheeg normal ah waa okay si ilaahay ugu talagalay ma jirtaa inay gabdho noolaato waa sax way u noolaan ka dhaa wallaahi alcadiim ilaahay magacii waxaan ugu dhaaranayaa gabar ilaahay ka cabsanayso oo sidii ilaahay ugu talagalay u noolaanayso oo siigeeda adeecayso okay ilaahay wuxuu yiri hadii gabadha farjigeedana ay xifdiso siigeedana ay raali geliso albaab gooni ah uu ilaahay jannada ka geliyaa way nagaga fursad badan yihiin inay jannada helaan si dhaqso ah waliba laakiin ma rabaan of course waxa la yiri raggu waa looga digay dumarka iska ilaaliya يعني وماشي إذن رجل لهيد بالير. سو ما دعك رجع مركو جهر صدار شو إن السماء ركت أي سويناتشين أو قبلها دلدل يقروح يكون رعان مركو هرم. ومدن كدقين لا هاي نول بو مركي أدجور سنيسد قفك أدجور سنيسد حتى قبلها فرينتو مدريا قبر يويل كستور ربان إني جور سدان ما أنت قفك أي ربان إني جور سدان سجود دير هاو فيريان هديك له دلقات كذا هبضيان إلا أي حد dulqaadkeeda ha yeeshaan waliba gabdhaha waxaan dhihi lahaa maalka guursatid yani sidaad hore xor uma ahaansid waa inkaada yani ka amar qaadataa markaa baxasid maxaa ku xilli munaasaba haddii uu ku dhaho ma baxasidna waa inaad joogtaa waa waajib waa hal iyo laba iyo saddex yaa soo tiri rabto way qaadanaysaa muhiimadda la isku fahmi la'yahaa taase gabadhan diyaar ma u tahay inay dhaqanto ma rabtaa inay marwo ahaato ma rabtaa inay noqoto qof lagu daysado ma rabtaa qof la dhaho awlaadeeda iyo saygeeda iyo reerkeeda way ka adag tahay maxaad heblow kale u noqon lahayd in la dhaho haday rabto waa inay diyaar u tahay inay marwo ahaato laakiin haday ninka isla dheerariso ay tiraahdo ani adiga saaxiib same life ana adduunka ma jiraan hablaha maanta jooga waxay u baahan yihiin ninkii naagta inay isku mid noqdaan wareeyo ani maalinteedaan jikada galay galbeelada is okay ma xumo laakiin waa in yani waa si lagu qanacsan yahay waxa ugu xun ee maanta nolosha ku baabado waxa weeyaan xurmo la'aanta
xaaskayga haddii ay xurmeyn weyday sideen ula noolaan karaa gabadhuna iyaduna ma yeelayso daro gabadha lagama noolaan karo ma yeelayso markii la isku fiiriyo labadooda waxaan uga mahadcelinayaa gabdhaha oo weliba arrintaa ku dulqaad badan gabdhaha uga weliba khadar mahadcelinaya arrin kale waxaa jidha yacni hadda dumarku waagi hore ay aqbali jireen laakiin hadda aysan aqbali karin taasoo ah in lala guursado gabadha in lala guursado waa sharci haddana ninka lacag kasta oo haysto si kastoo isugu filan yahay gabadha marna ma ogola in ninkeedu naa kala guursado aduu hadda ma ogolaan lahayd ninkaaga kula guursado waa ogolaan lahaa haddii aan xuquuqda kasoo baxayso dayacayn oo hubaa leh oo hubaal ah inuu ila guursado marka hore sheegtay waxaa tiri haddii aan ninkan hadduu dhaqaale haysan lama noolaan karaba marka nin dhaqaale haysan inaadan ka celin karin xaas kale miyaa may aaminsan kama tahay celin karo sababto wax isaga wax xaq loo siiyey weeye okay okay waa mahadsan tahay barnaamijku waa barnaamijka qisooyinka iyo jacaylka galabta maxaa barnaamijka ugu soo talagashay maadaama sheekadii hore iyo isweydiinta ee lala dheeraatay Sida. barnaamijka maxaa ugu talagashay wallaahi barnaamijkan qiso yar oo soo madhaad ka hor dhowr bilood ka hor dhowr bilood ka hor haa waa qiso dhow weliba qiso dhow weeye aad iyo aad okay qisada ma adiga shakhsiyan baa ma dad kale idin dhex martay ma jacayl baa ani shaqsiyan bay igu dhacda okay mid family miya mise waa mid jacayl may waa mid jacayl xagee ka dhacda soomaaliya okay anaa soomaaliya jooga laakiinse wiilka qisadaana dhex marso wuxuu joogaa UK UK haa UK magaalada ingiriiska Manchester la miya dhaho ingiriiska ingiriiska miya haa okay ha haye marka xageed iska hesheen qisada haddaa kuu soo bilaabo khadarow meel guruub ah baa waxaan iska baranay wiil baan iska baranay wiil yarna maaha dee waa raggaas yacni afartan ka jira oo nin macquul ahaa oo wadaada marka guruubka markaan iska baranay xiriir baan yeelanay saa ii soo bandhigtay inaan xiriir yeelano anna markaas maadaama aan sinka lahaa oo maxay yani xiriirka la-aan markaas lahaan waa ka aqbalay yani shaqsi aada u wanaagsan buu ahaa mana isoo marin xiriir lamida qofka markuu ku jecel yahay inta badan ama markuu yacni sheeg waxaa jira waxyaabo badan oo isheeg markuu sameeyo kale ficilkiisaa badanaa lagu dareemaa waxaa shaqsi aada yacni u keergarayn badan aada buu ii keergarayn jiray dhan kasta markaas ani waxaan ahaa jaamacadda sanadka u dambeeyaa dhiganayay adigu waxaa iga dhimnaa 2 bilood meelahaas markasta wuxuu dhihi jiray isha maxaa u baahan tahay dhakhtartaga caafimaadkaada soo baar fitaminadaada ina dhacsayin soo ogow yani ma u malayna xataa dad isqaba xataa inta badan isaa isaga fakaraan anuu xataa aan waxba weydiin jirin baa isagoo dhihi jiray sayloonka taclaan marso yacni dadka ina u qurux badnaatid baan rabaa cajiib bay ahayn marka hadal qisadaasay u socotay oo aan xiriir u lahayn horta markaan 2 bir 3 bir sheekaysananay buu wuxuu igu dhahay ani guur hore iga soo burburay oo waxaa gursaday yaraanta ka gursanoo 17 meelaas jira andan marka wuxuu dhahay ninkaas maada iska furay mise isagaa furninka xaggiisa ka yimid marka waxaa iri xaggaygu ka imaa marka habeen bay ahayd wuu xanaaq wuxuu yiri maadaama aninkaa iska soo fudhay anna biri saasa isaga kay furasaa marka hadda xoogaa waa kusoo jeclaanaya mar rabo laala qalbijo ma rabo marka sidaa nagu kala wan go-aan buu gaaray haa go-aan degdeg u gaaray marka anigu waxaan ku yiri horta stage baan ku iri see wax u dhaceen barnaamijkaas oo dhan baa kaaga shakin maadaama hadda mudkaada uu yacni khaldan yahay xoogaa dareemisid yacni sheegjowgaada bedelan yahay beriso wax ila soo xiriir haddana iska seexo khayr baa ku rajeynay wuu baxay khadar marka isla habeenkaas markuu xanaaqay wiilka wuxuu igu dhahay sababtaa u kala tagteen yacni sababtaa u dalbatay furninka isha u sheegay markaa u sheegay stiil musa sii qancin kasana waxaan ku iri soo istikhaarayso sheegnaydaad khayr u sheeg haddana waa sii baxana subaxdii ila soo hadla marka wuu baxay subaxdii ila soo hadla wuxuu yiri wixii xal dhac waa kaa raaligelinayaa waa soo istikhaaraystay istikaaradana way kaa qabatay marka xaal marin baa bixinayaa waxaan rabaa in xiriirkeenu uu sii socdo adigu 5 galabnimo
subaxii bisa leeyahay 5 galabnimo lacag mobilka ku jirna ma ark ana markasta dee yani saas uma si xanaaqsan oo markaasoo xal marin buu baxshay sidii xiriirkan u sii socday markaa muddo 2 bilood oo socona 3 bilood ah buu mustaqbal ii soo bandhigay inaan iskuursano wadanka imaanayo haddana wuxuu sheegay yani inaa wadanka dego in aanan la rabin macnaha wadan gaalo dhahay in ilmaha ku dhashaan maadaama hadda kor ay ilmo ku dhalay oo wadan gaalo joogaan anna waa ka aqbal waxaan kula dhib ma lahan meel nabada oo yani isha lagu noolaan karo waa degaya saas marka heshiiskeena ahaa adu markii guurkan uu ka dhiman yahay maalmo marka waxaa jira xaas hore isqabeen laakiinse marka ay dhowr sano kala maqnaayeen iyo caruur buu lahaa marka uu guurkan soo dhawaaday wiilkiisa curadka wacay wuxuu ku yiri Soomaaliya u socdaa gabar baa soo guursanaya wiilkiin hooyis warka u soo sheegay islaamka waa la soo wacay waxa la shir degdeg ah leenahay waa inaad timaadid guriga markaas yani nolosha yani kala maqan yihiin oo loo meel kala degan markuu imaaday waxa lagu dhahay ama ciyaalkaada ama gabadha u socod kala dooro yaa ku dhahay ciyaalkiisii xaaskiisii yaa ku dhahay xaaskii hore way kala tageen way kala markaa way kala maqnaay laakiin adigu dalqadii waxa u dhimanaa dabcan waxaa isugu dhimanaa marka wuxuu yiri wallaahi ciyaalkaygana waa rabaa gabadhaasna waa jecel waa rabaa inaan soo guursada rabaa xaaskiisi marka wax ku xujeysay in sanadii bar kadib wadanka yimaado i guursado inta ka horeysan uu joogo iyadu markaa ma wadankii joogtaa ayada ingiriiska la joogta ay dhinac kaga jirtaa okay asay markuu ii soo sheegay marka waxaan ku radhima lahan sidaa jeceshaa samee reerkaada ilmahaadana la joog haddii xaaskaada sanad bar ay kugu xujeysana shuruudeeda uu aqbalana diyaarba ku ah ma garata marka wuxuu dhahay inkastoo marka aniga aan dareensanaa in xaasku yani aska ay ku dhagraso oo aysan rabin inuu guursadaba laakiinse anigu tiisa u yeelo kama hor imaan marka wuxuu dhahay biil baa ku qoray adigu biil buu i qoray uu soo dhaqaalayn jiray after 2 months waa waayay xiriirkiisii waxay ugu dambeysay bisha 8 Agosto sanadkan 2024 markii ugu dambeysay wuxuu ugu yiri ciyaalka dalxiis ku xaynaya iskuulaadka waa loo xiray markaas warkiisa ugu dambeysay ilaa hadda dib dambe ma maqal ma ilaa hadda dib dambe ma u arag taleefankiisana xataa ma shaqeynaya maxaa isleedahay ku dhacay markaa walaa inuu xanuunsaday in taleefankii laga qaaday ma garan karo yani maanta inuu nool yahay inuu dhintay ma kala ogeyn ma ogi okay wax murugo oo ay kugu haysay ma jirtaa waaydiisa والله dabcan dee waa isjeclaan xiriir baa naga dhaxeeyay laakiin si aniga maadaama markii hore xaaskiisii problemkan u imaaday markaas aanu ka niyadjabay xiriirkaas inuu sii soconayn laakiin still aniga balanta waa adkeynay haddii ay ka ahayd in waqtiga isku dhaafiyo walaalkeen ama uu khaldamay adoo caaw iska cafinay أنا وحبة قبو صوبت أسوي وناقة ويسمي مد عيل لاود دونا معها وأنا مد يعني أنكو قردون شبوك حسوسته هذه ما صدق برنامجك وحاب برنامجك قصوينك جعلك وحنا مرتكو هيد ولا شيء مع عبدي ونوغا ما هاد علينا إنه سيد قروح بدن برنامجك وقصو قيب كشي إذن كنا إذن ما هاد علينا إنه أنت برنامجك سنكون كل مينو حق فرصمة دي كاميرا ده وصاحبك محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته